in qofka uu yeeshto dabeecad wanaagsan waa wax ku dheer diinta islaamka, iyadoo diinteena inagu sheegtay meelo fara badan in oo iska ilaalino akhlaaqda xun. waxaa ka mid ah waxyaabahaas oo akhlaaqda xun oo diinta inaga reebtay manada, micnaha mana sheegashada, in oo qof wax siisid berina aad ku faantid ama aniga ayaa wax siiyey aad dhahdid. midaasane haddii aad samaysid wixii fiicnaa ama wixii wanaagsanaa aad samaysay ayaad burburisay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay suurat albaqara aayadda 264 yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas. kuwa xaqa rumeeyo ha ku burburinina sadaqadiina manno iyo dhib, sida kan ku bixiyo xoolihiisa istuska dadka. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiid laga wariyey ayaa wuxuu dhahay 3 tilmaam qofkii yeeshta ilaahay mala hadlayo maalinta qiyaamaha, mana fiirinayo, mana dhaahiri doono, waxayna leeyihiin cadaab xanuun badan. waxaa ka mid ah 3daas qofka oo dadka kale ku mana sheegta. marka mana sheegashada waa tilmaamaha midda ugu xun qofka hadduu yeeshto. haddaadan isku dayin in aad maanta ka fogaatid, beri ma awoodi doontid in aad ka fogaatid ama in aad iska joojisid. xitaa waxaa laga yaabaa mustaqbalka adigoon qof wax siin ayaad ku mani sheegan kartaa, maxaa yeelay sifadaani xun ayaad baratay ama isbartay. marka wax walba oo kaa maqan waxaad ku dadaalaya in aad ku buuxiso manada. marka walaalkey iyo walaashay, naftiinaba iyo nafteeda waxaan idinkula dardaarmayaa in oo ka fogaano sifadan xun. haddii aad ku fikirtidna in aad qof wax siisid, ilaahay dartiis u sii, ha u siinin in aad beri ku sheegato.